maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bishii toddobaad maalin axadana ah waxaan rabaa dadka inaan isku sheego waxaan ahay Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Bade Suldaan Cabdi oo jooga magaalada Jijjiga waxaanan ahaa raggii kacdoonka dowladdii hore ka horeysay tan Mustafa gudoomiyahoodii baan ahaa waxaan halkan ka dirayaa baaq marka koowaad waxaan salaam soo jeedinayaa dowladda dhexe Itoobiya ee hogaaminaya ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed Ali iyo Aadan Faarax iyo ururka BB-da iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo xubnaha baarlamaanka inaga jira dowladda deegaanka Soomaalida ee federaalka ku jira iyo wasiirada kale ee federaalka ku jira ayaa waxaan ku bogaadinayaa marka hore sida fiican dhibaatooyinkii ka socday Itoobiya loo xaliyay nabadeynta iyo dib u heshiisiinta iyo wixii soo dhaco dhanba loo xaliyay waayo madax hore oo waxaa jirtay waddanka duruub ka gashay oo dagaalo sokeeyay ka riday waddanka oo aad isku baabay wixii oo dhan waa la wada cafiyay marka waxaan dowladda dhexe iyo deegaankaba aan ka rabnaa oo aan u sheegayaa inaan waan ka codsanayaa weliba in rag badan oo Soomaaliya ay Addis Ababa ku xiran yihiin halka qowmiyadihii kale ee dhibaatada waday laga wada cafiyay sida Tigreega Axmaarada Oromada laftigeeda iyo qowmiyadaha kale ama Birishaanka ama Gambeel waxay doonaan qowmiyadii kale oo dhan wixii ka xidhnaa ee dowladihii hore la soo shaqeeyay tan Abiy ka horeeyay ee waa la wada cafiyay wixii dambi galay ama gumaad sameeyay waa la wada cafiyay marka waxaan leeyahay xubnaha dowladda loogu jira ee Soomaalida ah ee BB ku jira iyo Abiy Ahmed oo ra'iisul wasaare dalka waxaan u soo jeedinayaa in xubno 17 qof in ka badan oo ku xiran Addis Ababa oo nidaamkii hore oo ka mid ah in la cafiyo la soo daayo Soomaali ahaana intay loogu jirta ururka BB inaga ceeb bay nagu tahay in qowmiyadii kale la sii daayo tii Soomaali keentana lagu reebo marka waxaan codsanayaa in la sii daayo Cabdi Maxamuud Cumar iyo inta la xiran oo dhanba sida kuwa kale Itoobiya kale loo cafiyay in iyagana loo cafiyo midna ogaada xubnaha Soomaalida ay loogu jira meesha inagoo dhanba ceeb nagu tahay in qowmiyadii kale la sii daayo kuweynina ay xidhaadaan marka ayagana waxaan leeyahay ka kaca dowladda gaarsiiya federaalka idinka laftigiinu wixii aad qaban kartaa qabta si loo soo daayo dadkaas waayo wixii dambi galay oo dhan ee qowmiyadaha kale waa la sii daayay marka codsigayga koowaad waa kaas midka labaad waxaan leeyahay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne adaa waddankan dowladda shacabku waa shacabkaagii dadku waa dadkaagii adigu weliba inaad daba gasho ayaan kaa codsanayaa gaar ahaan anoo Suldaan Cabdiraxmaan maadaama adigu madaxweynihii deegaanka aad tahay isimada kale ama garaadada iyo dhaqanka Soomaalida kale iyo aqoonyahanka kale ee Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay baaqayga taageeraan oo u jeedaan dowladda Itoobiya iyo takilka ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab kood nambarka xidig 1 eber 1 4 gees